أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وسبتي أفر لباتنك ذو القعدة كن أفر بقولي أفرتك هجرة تدبير لباتنك لوليو لبكون يسغالي تون ميلادك وحان جوغا من مكة أكتيدا وحانا وجيدا مسجدka la yiraahdo masjid al-bay'a. masjid al-bay'a wuxuu ku dhagan yahay saddexda jamraad aad u jeedid saddexda jamraad ku dhagan yahay. masjidkan waxaa dhisay Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi khaliifka labaad ee Abbasiyiinta sanadka 144 hijrada una dhiganta 761 miilaadiga. wuxuu ka dhisay bartuu nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku baayacay oo kula heshiiyey ansaarta almadiina almunawwara sanadka 13aad ee nabinimada waxayna ahayd maalinta 12aad ee bisha Dhulhijja. ansaartu waxay ahaayeen 73 nin laba haweeney oo kala ah Nusayba iyo Maanic Asmaa bintu Amr. jiirtaani waxay lahayd laba dariiq oo soo gala oo jiir bay ahayd oo buura ku yiri halkan oo anigu waa ark 50 sano ka hor waa ark saasay ahayd. marka jiirtaan waxay lahayd laba dariiq oo soo gala midkoodna waxaa taagnaa oo ilaalinayay al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam mawlaaya. dariiqa kalena waxaa taagnaa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu oo labadoodu seefahoodu galalka ayay ka siibnaayeen oo waxay ku ilaalinayeen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo ragaas baayacaya. Uthman bin Affan halkaas kama fogeyn meel kale ka taagnaa. markuu heshiisku dhamaaday oo ay ku heshiiyeen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo ansaartu Ibliis wuxuu la qayliyay qaylo xoog badan wuxuuna gaalada Quraysh u sheegay heshiiskan bartaas lagu gaaray. markaasuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri hada Abu Lubayna qad anzara bikum فتفرقوا كانوا أباها لبينا oo dadka idinka digay marka kala taga. Lubayna waa gabadha Ibliis. waxaan hadda akhrinayaa magacda qaar ka mid ah ilmaha Ibliis iyo hawshooda ay u xilsaaran yihiin siduu al-Imam al-Baghawi ugu wariyay kitaabkiisa tafsiirka ah tafsiir al-Baghawi. أعور hawshiisuna waa inuu haweenka ragga u qurxiyo raggana haweenka u qurxiyo si uu shahwadooda u kiciyo uuna ku riixo ku qaado inay kala zinaystaan. taas weeye shaqadiisu. labo khanzab hawshiisuna waa inuu shaki ku abuuro qofka tukanaya quraanna akhrinaya oo markaasuu isweydiinaya ma laba ragcaan tukaday mase saddex quraan ma akhriyay mase maya ma hal ragcaan tukaday ma mar kaliya aan sujuuday mase laba goor. taas weeye shaqadiisu khanzab. saddex wallihaan wuxuuna qaabilsan yahay waysa qaadashada wuxuu shaki gelinayaa inta goor oo uu qofku xubinta la dhaqahayo dhaqay ma mar baan dhaqay wuu isweydiinayaa mase laba goor mase saddex. afar daasim shaqadiisuna waa inuu guriga dhexdiisa khilaaf ka dhex abuuro qoyska xubnihiisa. wuxuu ninka ku dirayaa haweentiisa haweentana wuxuu ku dirayaa ninkeeda caruurtana wuxuu ku dirayaa
aabbayaalkood iyo hooyooyinkood, hooyooyinka aabbana wuxuu ku dirayaa caruurtooda. 5 zalanbuur. zalanbuur wuxuu qaabilsan yahay suuqa oo ganacsatadu ku qaadaya inuu badeecadiisa been ka sheego una been ku dhaarto. 6 hufaaf. shaqadiisuna waa inuu dadka dhibo. mararka qaarkoodna wuxuu isku soo ekaysiiyaa xoolo khatar badan si uu dadka u cabsiiyo. 7 matrash. shaqadiisuna waa inuu been faafiyo. 8 dahaar. shaqadiisuna waa inuu muslimka hurda u yimaado oo uu cabsiiyo isagoo riyo laga cabsado tusaya. 9 miqlaas. shaqadiisuna waa inuu dadka ku riixo inay khamaar cayaaraan. hadday ka yeelaanna wuxuu cadaawad ka dhex abuurayaa kuwa khamaarka wada cayaaraya. 10 laaqiis. waana gabarta ibliis oo qowmuluud bartay inay haweenta kale u tagto kadib markii raggii uu dumarka ka jeestay oo khaniisiin intay noqdeen raggu uu ragga kale u tegayo haweenkiina ka jeesteen. 11 lubayna ahna lubna waana gabadha ibliis. alghaazi wuxuu wariyey inuu ibliis maalintaas yidhi oo qayladiisu ay ahayd madaxda qurayshow al-aws iyo al-khasraj muxamed sala allahu calayhi waala alihi wasalam ayay la heshiiyeen inay taageeraan oo u gargaaraan. 20 sano ka hor anugu masjidkan waa ku tukaday wuxuuna ahaa kharaab. dhexdiisana waxaa ku yiilay oo ka soo baxay geedo waaweyn oo badan. dhulkiisuna wuxuu ahaa ciid, albaabna ma lahayn, kadiifadna ma oolin. waxaa tiilay mimbarka kartoon dad dhigtay. halkaasaan ku tukaday anigu. meel aan halkan ka fogeyn oo jamraadka aad videogan uga jeedid, jamradda koowaad iyo jamradda labaad dhexdooda, asayida aamina bintu wahab calayha asalaamu waxay ku qaaday uurka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. halkaasoo uu kula aqalgalay asayid cabdullaahi calayhi salaam, siday ahayd caadada quraysh islaamka hortiis in aroosada cusub lagula aqalgalo guriga aabbaheed oo 3 maalmood iyo 3 habeen lala joogo. wahab asayida aamina calayhi salaam aabbaheed ayaa halkaas guri ku lahaa. meeshuu ka dhisnaana waxaa la oran jiray shicbu abi aalib. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. hadda waxaan gelaynaa masjidka. masjidkan waxaa kaloo la yidhaahdaa masjidu alcaqaba oo halkan jiir ayay ahaan jirtay. anigu waa arkay isagoo jiira. weli masjidkii albaab ma laha oo u jeedaa. jamraadkiina waa kuwaas 3 jamrad. waa kana
mixraabkan 20 sano ama ka badan ka hor ku tukaday. jamraadkiina waa kuwaas. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.